diyaaradda cabsida waa diyaaradda ugu khatarsan uguna cabsida badan caalamka run ahaantiina way tahay sidaas waa diyaarad kuu soo kadinaysa sida geerida waxaana loogu yeeraa ruuxaanta duusha si kadiisa ayay hortaada uga soo baxaysaa adigoon filaynin waa bilaa guux aadna way u dheeraysaa keligeed waxay burburin kartaa ciidan dhan waxayna ka qayb qaadatay dagaaladii ugu adkaa uguna khatarsanaa miisaaniyadda ay halkii mar ku duusho waa nus milyan oo dollara halkii mar ay kacdaba guuxeeda lama maqlo lamana arko raadaaradu ma qabtaan xitaa ma dareemaan in cidi dul martay oo aad bay u dheeraysaa ku soo dhowaada diyaaraddan wareerisay adduunka ee USA laga leeyahay cid kale ma haysato loomana oggola in cid kale laga iibiyo xitaa asxaabteeda reer Yurub ama xitaa Yuhuudda oo ah saaxiibka ugu dhow ee Mareykanka looma oggola sharciga ayaanba oggolaanaynin ayaa lagu soo gabagabeeyay cid kasta oo dalbatay in laga iibiyo intay doontaba ha ku kacdo qiimaheedu waxay u samaysan tahay qaab aad looga yaabay oo wakhti iyo dhaqaale la geliyey waxaana ku rikaban tiknoolajiyad aan weli adduunka kale lagu haynin cidi kulama tartami karto hawada oo iyada looga hadhay xawaare iyo guux la'aan iyo weliba tirada hubka ay qaado oo aad u badan una khatarsan ilaa hadda waxba laguma oga qaab dhismeedkeeda hal xaboo diyaaradahan ah ayaa ku filan burburinta ciidan dhan oo ka mid ah dawladaha dhexe sida Qatar iyo Bahrain oo kale aad ayaana adduunka looga qarin jiray jiritaanka diyaaraddan waxaaba la ogaaday jiritaankeeda 2011 waana diyaaraddii fulisay dilkii Usaama bin Laden diyaaradihii fuliyay weerarkii lagu dilay Usaama bin Laden waxay ahaayeen laba diyaaradood oo noocan ah mid ayaa degtay oo dhulka fadhiisatay intaanay takale ridin gantaalkeedii ay ku dishay Usaama lamana oga sababtay u fadhiisatay balse iyadoo weli fadhida ayay arkeen koox ciidanka Usaama ka mid ah waxayna ku dhufteen gantaal halkaas ayayna ku burburiyeen waxaana isqabsaday buuqii iyo wararkii sheegayay dilka Usaama balse cidba hoos uma eegin burburka diyaaraddan waana markay ugu dhaweyd in wax un laga ogaado qaab dhismeedka diyaaraddan waxaana markiiba soo aruuriyay Mareykanka si aan cidaba u ogaanin burburkeeda iyo inay tahay diyaaraddii caalamka ka wareerisay oo si dhib yar Daalibaantu ku burburiyeen intay jaanis ku heleen iyadoo dhulka fadhida ilaa waqti badan kadib la ogaaday dhacdadaas golaha Koongareeska Mareykanka ayaa sharciyay inaan diyaaraddan cidna laga iibin karin marnaba haddaba maxay gaar la tahay diyaaraddan marka waxay leedahay raadaar ogaanaya halka cadowgeedu joogo masaafo aad u fogna ka soo aruurinaya macluumaadkooda waxaa ku rakiban gantaalo lagu hago qaab laser ah waxay 10 jeer ka dheeraysaa diyaaradaha caalamka ugu dheeraya waa bilaa guux aan xitaa shanqadheeda la dareemin waxay sidoo kale qaadaa gantaalada nukleerka halkii marna waxay ku duushaa miisaaniyad ka badan $1 milyan waxaa ku xidhan tiknoolajiyad macalaa habeenkii wax lagu arkayo iyadoo xitaa habeenkii fulin karta weeraro argagax badan oo aan la ogaan karin meelay ka yimaadeen waxayna jaraysaa xawaare gaaraya 2000 kilomitir saacaddii mana jiro qaab difaaceed lagu qaban karo hadday hawada gasho ilaa hadda waxay qabataa dhammaan shaqada diyaaradaha dagaalka oo dhan iyadoo hal mar fulin karta shaqooyin badan oo meelo aad u kala fog ka socda muddo saacado gudahood ayayna caawin kartaa dagaalo tiro badan oo kala duwan waxay hoggaan ku haysaa dagaalka hawada mana jiro xitaa wax ku soo dhowaaday caalamka inta hadda la og yahay waxaa dhexdeeda laga fulin karaa weeraro elektaroonig ah iyadoo dayax-gacmeedyada tushuus gelinaysa waxay sidoo kale ku samayn kartaa haakin dayax-gacmeedyada iyo satellaydyada ku xidhan iyadoo hawada ku jirta iyo weliba inay burburiso markay ka dhammaysato howlaheeda iyadoon la qabanin xitaa la ogaanin inay aaggaa joogto gantaalada ku xidhan mid kasta wuxuu ku fadhiyaa qiimo gaadhaya $1 milyan diyaaradaha noocan ah waxaa la sameeyey ilaa hadda 157 xabo waana Mareykan oo kaliya waxaan rajaynayaa inaydan is arkin meelay ka howlgashana aadan u dhowaanin hagaag muuqaalkeena aan uga hadlayna diyaaradda ugu halista badan intaas ayaan ku soo koobaynaa midka xiga intaan ku kulmayno amaana Allah